Lamine Yamal oo looga digay inuu la haasaabo dumarka ka da'da weyn. Freddie Adu oo mar loo arkay xidig mustaqbal weyn leh ayaa si daacad ah talooyin ugu jeediyay Lamine Yamal daayarka 18 jirka ah ee Barcelona isagoo uga digay dhibaatooyinka iyo mashquulka ku imaan kara marka uu caan noqdo. Adu oo 14 jir ku noqday ciyaaryaankii ugu mushaarka badnaa horyaalka MLS-ka isla markaana heshiis malaayiin euro ah la saxiixday shirkadda Nike ayaa ka digay in Yamal uu ka feejignaado warbaahinta iyo dhaqamada qaldan ee ku wareegaya. Adu ayaa hadalkiisa ku bilaabay: "Talo ahaan waxaan leeyahay diiradda saar tababarka kuna dadaal xirfadaada sababtoo ah waxaa jiri doona mashquul badan xitaa hadda wuu jiraa waa muhiim inaad cagta dhulka ku hayso." Isagoo kaftan ku daray hadalkiisa ayuu raaciyay: "Waxaan akhriyay wargeysyada oo sheegay inuu fasaxii la qaatay haweeney ka weyn isaga. Taasina waa dood dadka ay hadalka keeneen. Wax kasta oo uu sameeyo waa la hadal hayn doonaa. Haddii aad fasax ula baxaysid haweeney ka weyn, hubi inay tahay hooyada oo keliya." Yamal oo si degdeg ah ugu soo baxay kooxda koowaad ee Barcelona ayaa wajahaya cadaadis iyo indho warbaahineed oo la mid ah kuwii Freddie Adu ee waayihiisii hore. Hase yeeshee Adu oo Yurub ku soo guuldareystay inuu ku xasilo isagoo soo maray 14 kooxood oo ay ku jiraan Benfica, Monaco iyo tijaabo uu ku soo maray Manchester United ayaa ugu baaqay Yamal inuu wax ka barto qaladaadkiisii hore. Adu wuxuu ciyaaraha ka fariistay isaga oo 33 jir ah kadib markii uu waqti yar ku qaatay Sweden, halka Yamal uu weli haysto mustaqbal ifaya oo Barcelona iyo xulka Spain ah. warbixintaasna waxay qayb ka ahayd barnaamijkii bandhiga ciyaaraha oo aan mar walba uga hadlo wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo caalamka. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkana la soo gaartay ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.